Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shirweynaha hay'adda booliska adduunka ee Interpol. Wasiirka amniga gudaha Mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali oo uu helinayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo wafdi ka kooban saraakiil sare oo ka socda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa magaalada New Delhi ee dalka Hindiya kaga qayb galaya meertada 9aad ee shirweynaha booliska adduunka. Shirka oo ay ka soo qayb galayaan madax ka kala socota in ka badan 165 dal ayaa socon doona inta u dhaxaysa. Shirkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo kooban. Shirka inta uu socdo ayaa looga hadli doonaa ka hortagga dambiyada maaliyadeed ee caalamiga ah, wax ka qabashada burcadda internetka, la dagaalanka argagixisada, ka hortagga dambiyada xuduudaha isaga gudba, daroogada iyo lacagaha sharci darrada ah, kuwaas oo dhammaan ka mid ah khataraha uu wajahayo guud ahaan amniga caalamka.